intaas kale gelin waxa waaye qandho laakiin qandhadayda mayna gaarsiisnayn 37 iyo digri iyo 38 iyo 40 bay gaarsiisnayd kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo lasoo dhaafay markasta waa wacaaye waana la tashanaayo waxyaha caafimaadka hase ahaatee waxay igula teertadba talada isiyana raacaaye waxaa kaloo iyadana xusuus mudan inaan intaanan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jiro gurigayga oo aanaba banaanka u bixin xanuunkaygu bilowda aniga markaa macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo iigu yimid waaye xanuunka markaa ilaahay baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegaayo layma testi karaynin test layguma sameynin lamana cadaynin inuu covid-19 yahay laakiin markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban Soomaaliga sardhabanaa lagu dhahaa mild condition waxa Ingiriisi lagu dhahaa Soomaali sardhabanaa lagu dhahaa markaa sardhabanaa kale u garanaya Soomaaliga waa ballaaran yahay waxaa laga yaabaa inkana wax kale u taqaanaya kaan sardhabanaa u aqaana saas laajigad sardhabankaasoo ii qabanayay waan iska fiicanahay iska soo kacay qabaysanahay salaadeed waa tukanaa cunto waxa cuni kara cunaay bad laakiin ilaa hadda aan idin la hadlaayo ur iyo dhadhan labadaba ma lihi wax cuntada waa iska cunayaa laakiin mana isuxmi soo uraayaan waxnana ma ii dhadhamayaan marka waa amar ilaahay qadartana waan aaminsanahay oo waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaad kala hadlo waxa weeyaan la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanina hadda waa kaas baabka ay xiran yahay kaliya inta qolkan ku jira ilmaha aan dhalay 3 ila nool midnana hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka hadana aadana way karigay marka yaan la dhayalsanin waxyaabahan kale aan iska dhaadhicinayna dadka muslimka kuma dhacay iyo waxaas waa dhamaatay waa ku dhacaa qof walba ku dhacaa muslim ku dhacaa gaal ku dhacaa waxba ku dhacaa diinta rabta aaminsanaa waxaana waa cudur qof kastoo ku dhacaya laakiin la suroonaado oo la isku xiro qufaan laha qufci waa iga yaraada aad u iga yaraada qufaca marka astaamahayga saas ay ahaayeen qofba si u qabanaya dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaas maaragtay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynaya iyo kuwa aan shaqeynayn labadaba waxaad ogaataan horta meel walba ku noosho waa carro ilaahay waa ilaahay arladiisa ilaahay dhulkiisa cirka ka sarreeya waa ilaahay samadiisa wax oo hadda weyn maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto hada sidaas needin ku degsada tanugu walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geeyo aan isbitaal lama geeyna alxamdulillah ma baahanba gurigaaga joog say ilaahay gurigaaga joog guriga la jooga hadaad neefta kugu ceshonta bas masaawac neefna meedu ilaahay meedu ceelin alxamdulillah wa fiicana haddana waa soo reysano yaaba xilligaan oo kala qandhow badan ay saarnaa jirto hadda ay saarno alxamdulillah marka taas waa taas dadka isbitaalka la geeyo waxyaabaha ugu daran oo ku dhaceeyo waxa waaye cidlo qofkaaga ambulance markii lagu wacmo kula raaci karaba ina ogtiin in kala maqan kula raacayo haddii inta isbitaalka lagu geeyo la cadeeyo oo laga helo test lagu sameeyo kasta had testiga way bayareeyeenba test lagu sameeyana macnaheedu waxa waaye absolutamente agtaad qof ma imaanayso qofkii marka cidlo iyo argagax ayaa uga sii daraya xanuunkii hay okay hadday noqoto oo tii rabbi ku timaado isbitaalka lagu geeyo ma rabana idinka naxii laakiin reality-ga waxaa dadkaaga waa la soo wacaa qofkiina waa dhintaa la dhahaa idinkana ma imaan kartiin 14 birna waliba guriga inay ku jirtiin waay maadaama qof oo xanuunka haayo oo xanuunka u dhintay oo guriga idin kula noolaa marka waa cid la ciirsi la'aan dadka badanaa xaalad adagaa lagu jiraa
waxaan si gaara rabaa inaan oga hadlo oon dul maro maanta maadaama markii ugu horreyso xanuunka masaa uga soo kaca aan hadlaayo ay tahay hadalkina aada ugu dheeraada ma rabo marka waxaan rabaa inaan aada ula kala hadlo xilligan oo kaleeto xilliyada welwelka badan yahay welwelka ku haynaya aada u badan yahay xilligan oo kaleeto marka haddii markii hore adoo caadi ah mental health problem iyo depression iyo anxiety xilligan oo kale anxiety aada u badan yahay because anxiety waa werwer maxaa dhici doona maxaa kugu soo socda werwer taas waxaa looga gudbi karaa inaa isxasiliso isdejiso nafta haddii lasoo doonto meelaa kaga baxsanaysid male laakiin tan ugu muhiimsan waxaa waaye talooyinka la bixinayo inaad raacdo inaa ahaato qof updated ah oo waxa jiroo lagu hadlaayo og meel kasta waa google haddaa furto waxaa ka hor imaanaya fariinta coronavirus waxaa ka hor imaanaya wadaytas carabi ahaa lahe ingiriis ahaa leeda wada alla wada ka joogto adduunkii oo dhan qodka alerta la siinaa marka wixii xugun ilaahay ah xugun ilaahay waa aad wax maki qaban kartid haka adi inaad dadaasho lagugu leeya dadka kalena aadan hasin irsaaqada rabbiyaa bixiyo ilaahay irsaaqada bixiyo dadka wadanka ku nool inan ku dayano ma aha anaga adiga dadkaana aad joogto ama shaqey ama shaqeyn xilligan adag ee lagu jiro waa la kafaalo qaada noloshaada ilaahay ka sukow waa la kafaalo qaada haddaad shaqaynaysana waa lagu kabaaya haddii aadan shaqaynayninna mar walba waxbaa lagu siinayay haddii aad ganacsi iyo kambani iyo shirkad iyo wax laheedna iyadana qaab kale wax lagugu siinaya dadkan UK jooga haddaa si gaara ula hadlo 6 bishaan maanta 2 waayo bisha abriil 6deeda laga bilaabo ayaad arki doontaan warqada idin soo dhacaya halkaasaana laga bilaabaya 6 abriil lagaaga bilaabaya lacagta lagugu caawinayo hal sano camal waa laga qaybinaa marka 12 bilood loo qaybinaa 6 abriil ee sanadkan 2020 ilaa 6 kale abriil ee sanadka 2021 hadda saa u taqaan ayaa loo qaybinaa lacagta lagugu caawiyayo marka irsaaqada ilaahay bixi istajiib ragga Soomaaliyeed oo badanaa tagaasida wadaaya oo taksiga ku cararaya qoysas badanaa arkaayo qayladooda isu yeerayso waxawaaye taksiga daawada macnaheedu self employed aad tahay qof iskiis u shaqaystaa tahay maadaama aad tahay qof iskiis u shaqaysto macnaheeda waxaa waaye dowladdu way ku kabaysaa self employed kii dadka ahaa ama dadkii iskood u shaqaysanayo waa la kabayaa ayagana laakiin waxaa laga yaabaa sida kuwaan loogu bilaabayo bishaan dhammaadkeeda ama bishaan raggeeda inaan loogu bilaabin ayaga oo yara dib u yara dhacdaa dhici karta laakiin mar kastoo lagu kabaayo inta baxdo aad xaaskee caruurta xanuun u keeni lahayd qof immune system u leh waxaan ma jirto qof kasta ku dhaca waxa ku fiican inaad isbadbaadiso gurigaagana badbaadiso oo joogto gurigaaga iska ilaawa taxi xisna iska ilaawa because taxi is a customer service camal waa aad qof sida qof dad badan ka dhex shaqeynaa camal ama dad qaadey mahana ilmiina hoo keenin xadur iyo xaasaskiina hoo keenin oo darabta urus kale oo darabta nuujinayso ilmo yar yar oo yacisa dad badan oo ku dhacay dad badanaa dhintay 563 qof aa dhimatay wadankan shala kaliya taa hadday gasho waa dhimahee madaxda guriga ku jiro laakiin dadaalaa lagugu leeyahay inaad dadaasho lagugu leeyahay marka taasna waa taa dood baa jirta wadankan laga doodaayo sidii review loogu samayn lahaa dib loo eegi lahaa wiigi saddexaad hal wiigaa noo dhiman 3 wiiga hore la qabtay UK hal wiigaa dhiman laakiin uma eka wiiga